Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kulanti wacan daawadayaal meel baa joogtaan dunida dacaladeeda. Halkaa nagala socotaan waa barta YouTube-ka ee Calas 24 Post. Wararka caalamka kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah xuskii maankii shalay ka dhacay magaalada Moscow caasimadda dalka Russia ee ku beegnay 9kii May ee bisha 5 2023 ayaa halkaa waxaa ku soo baxay kumanaan shacab ah qeybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida dowladda Russia. Madaxweynaha dowladda Russia Vladimir Putin ayaa khudbad qiiro leh ka jeediyay halkaas iyadoo lagu xusiyay xilligii Naasigu ku soo qaaday dagaalka 1944 ilaa Maayo 1945 ilaa Maayo ay gacanta ku dhigeen caasimaddii Naasiyiinta ee Jarmalka magaalada Berlin. Madaxweyne Putin oo khudbad dheer halkaa ka jeediyay ayaa dul istaagay faahfaahin ka bixiyay dhibkii uu ka geystay dalweynaha Russia Naasiyiinta. Wuxuu ku tilmaamay kuwo arxan la'aa oo dhib weyn u geystay dunida gaar ahaan shacabka Russia. Wuxuuna yidhi waxay dileen 27 milyan oo shacabka ka mid ah aabbayaal, hooyooyin, ciidan, gabdho, xaasas, waxay u kala reebayeen ma lahayn. Sidaa daraaddeed alle ayaa noo heliyay ayuu ku yidhi afkiisa luqadda Russia. Madaxweyne Putin wuxuu yidhi guushaas waxaa gaaray in Naasiyiinta la jebiyo. Dalweynaha Britain, Mareykanka iyo Russia oo isgarabsanaya wuxuuna ku tilmaamay arrinkaas arrin legacy ah oo ah in la xuso had iyo jeer lasoo xasuustana ah. Wuxuu sidoo kale rabaaxo kulul ku dhuftay dowladaha reer galbeedka oo ay ka mid yihiin dowladda Mareykanka, dowladda Ingiriiska, dowladda Yurub iyo dowlado kale. Wuxuu sheegay in Naasiyiintu ay doonayeen inay Ruushka qabsadaan, waxayna noo diidan yihiin buu yidhi inaan nolol ku noolaano, inaan sidoo kale wax u qabsanno, inaan wax samaysano, inaan dhaqaale la soo baxno. Sidaa daraaddeed waxay ku kala duwan yihiin Naasiyiintii iyo kuwa maanta tole dagaalka tooska ah nagula jira ee Ukraine nagu soo hubeeyey. Madaxweynaha doqonka wuxuu la jeedaa madaxweyne Zelensky wuxuu yidhi waa mid doqon ah oo wax awood aan lahayn sida waraaqdii oo kale ayay reer galbeedku marba wax u qoraan markay doonaanna meesha doonaan u diraan. Ninka noocaas ah waa ayaga ku shaqaysta. Wuxuuna yidhi waxaa waddanka Ukraine lagu abuuray 10 sano u dambeeyay fikirka Naasiyiinta. Haddana Naasiyiintii 1945 iyo kuwan waxba ma kala duwana. Sidaa daraaddeed dadweynaha Russia weligood boqolaal sano ayaa dagaal lagu soo qaadayay, guushana ayay ku dambeyn doontaa. Daawadayaal, madaxweyne Putin wuxuu rabaaxo kulul ku dhuftay sida dowladda Mareykanka iyo Ingiriiska oo uu ku tilmaamay dowlado adduunka foodo ka wada iyo dowladaha reer galbeedka uu ku soo daray. Wuxuu yidhi adduunka qallalaasaha, boobka, dilka iyo in dowlad la'aan jirto iyo in kala dambeynta ayay jecel yihiin. Dowlado badan ayay dhaceen hantidoodii, dowlado badan ayay isku direen, dhiig badan ayay daadiyeen. Waa dowlado noocaas ah oo qalan shubata oo waxa way dhiig waxba ahayn oo raba inay markay adduunka soo liqeen maanta Russia ayay u yimaadeen. Waxay rabaan dalkayga inay burburiyaan. Dadweynaha Russia dalkiina ninkaas kale difaacda. Wuxuu yidhi oo kale soo oo madaxweyne Putin uu dul istaagay dadweynaha ku nool gobolka Donbass ee dalka Ukraine. Wuxuu yidhi reer Donbass waa dadkayaga. Waa hadda magaalada dagaal ku socda magaalada Bakhmut iyo dhulkaas oo dhan ka mid ah iyo magaalada Mariupol iyo dhulkaas ka mid ah Donbass soo galaya. Wuxuu yidhi waa difaacaynaa, waan u dhimanaynaa, waa shacabkaygii iyo gobolada kale oo lagu daray buu yidhi dalweynaha Russia ee ka mid ah Ukraine 4 gobol. Crimea ku jiro 5 ay ku tahay. Daawadayaal, madaxweyne Putin khudbadiisa ayaa neehayaa. Waxaan jeclaystay in ay la daawataan madaxweynaha khudbadiisii inaan hadda nii soo sidaayo. Madaxweynaha khudbadiisa waxa ka muuqata maaragtay aad bay shacabku la dhaceen. Qiiro ayaa ku jirta, wadaninimo ayaa ku jirta, dal jacayl buu muujiyey, ciidan jacayl buu muujiyey. Waxa weeye waa loo sacbiyey. Fadhiga ayaa looga kacay. Aad baan maaragtay shucuubta dadweynaha Russia isku bedeshay kuwii markaas ku sugnaa fagaaraha cagaaran ama loo yaqaan Red Square ee lagu soo bandhigay dabaaldegii maalinka shalay ka dhacay 9 May ee magaalada Moscow. Sidoo kale daawadayaal, madaxweyne Putin khudbadiisa wuxuu kale uu ku soo qaatay oo dul istaagay inay geesiyaashii Russia difaacay in la xuso. Wuxuu yidhi maanta waxaa nala jooga carruurtoodii, waxaa nala jooga kuwii awoowaha u ahaayeen, waxaa nala jooga gabdhahoodii maaragtay oo fadhigan ka soo qayb galay. Aad buuna maaragtay wuxuu yidhi hal daqiiqo ayaa la aamusay waana loo duceeyey.
oo luuqadooda iyo waxay aaminsan ay ugu duceeyeen geesiyaashii u halgamay dalka in laga xoreeyo cadowga ku soo duulay 1944 ilaa 45 ee naasiyiinta ahaa ee madaxweynihii dictatorka ahaa uu hogaaminayay Hitler la oran jiray. Sidoo kale wuxuu dul istaagay madaxweynuhu dhaqaalaha dalkiisu inuu ka soo roonaanayo sanadka kale. Reer galbeedkuna isku dayeen inay saaraan cunaqabateyn, waxaana cunaqabateyntaas ay ka tirin weyday dalkiisa in lagu burburiyo ayaa lagu talagalay sidii midowga Sovieti markuu weeraray ayuu yiri dalka Afghanistan 1970 dhamaadkeedii. Sidaa daraadeed wuxuu yiri hadda dhaqaalaha waddanka aad buu u fiican yahay, inflationka ama maaragtay sicir bararkuna uu soo dhacayaa bil ka dambeysa. Daawadayaal waxaan jeclaystay inaan nii soo gudbiyo khudbaddii madaxweyne Putin oo shalay ka jeediyey fagaaraha cagaaran ee loo yaqaano Red Square. Idinkoo mahadsan barnaamijka waxaa la sheergaraysaan Сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Для нас, для России, нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Считаем, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Похоже, они забыли, к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство. Забыли, кто разгромил это чудовищное, тотальное зло, кто встал стеной за родную землю и не пожалел своих жизней ради освобождения народов Европы. Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев, разменной монетой в реализации их жестоких, корыстных планов. daawada sidoo kale ra'iisul wasaarihii dalka Pakistan Imran Khan ciidamada amniga shalatoola ayay xireen waxaana ka dhashay rabshado aad u fara badan maanta toole waxaa la soo sheegayaa garoon diyaaradeed ciidanka cirka ay leeyihiin in halka lagu gubay diyaarad nooca Chinese sameeyeen ee la yiraahdo J16 iyo hanti kale oo halka taalay gaadiid kale rabshado badan ee dalka socda sida magaalada Lahore iyo Islamabad. Wararka ku xiga ayaan ku soo qaadan doonaa xaaladda kacsan ee ka jirta dalka Pakistan iyo wararka kale oo caalamka meel walba joogtaan daawada wada maasantiin barnaamijka asxaabtiin la wadaaga.